السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت بدن كحران سومالي كريبتوفوليو يوتيوب channel لما وادي سلامي waxaynu ku jirnaa bisha Ramadaan waa gabagabo waa maalmihii ugu dambeysay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga aqbalo cibaadadeena iyo amalka saalixa ah dhamaanteen videogan gaaban waxaan ugu talagalay walaalihii isu diyaariyay bisha shanaad course-ka bilowmi doona inay iska diiwaangeliyaan videoga waqtigan sameeyo taariikhdu waxa weeye bisha afraad 2022keedii oo sanadku yahay 2022 sinu ognahayna walaalaha dhamaan telegramka message-da ii soo dhigay ee aan u jawaabay iyo walaalaha YouTube-ka ku xiran ka buuxsamay kii bisha afraad ee aan ku iri baynu balantiin noqon doontaa insha Allah isdiiwaangelistu waxay furmi doontaa insha Allah sida dhamaantiin ogtihiin bisha 23keeda April bay furmi doontaa yani aniga oo videoga maanta duubaya yani isdiiwaangelintu waa berito marka insha Allah course waa san sheegnay wuxuu biloomaya iida dabadeeda mumkin maalinta ugu horeysa ama maalinta labaad iida dabadeeda wuxuu soconayaa bil dhan oo waxbarasho ah waa 4 week bishaas waa 4 week weegi waa 3 casho 3 casho maalintiina waa 2 saacadood kadibna waxa weeye maalmaha qaar koodna waxaan soo galaa muraajaca aan u sameeynaa dadkii uu dhaafay casharadii ay dhaafeen ama ay ku adkaadeen muraajaca loo sameeyaa waxaana loo dhiga groupka videos loogu talagalay oo muraajaca ah oo ay ku celceshadaan markasta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay hambalyo walaalihii dhameeyay bishii saddexaad iyo bishii afraad waxaan leeyahay waad guulaysateen horena u socda sababtuna waxa weeye waad muujiseen dadaal iyo ijtihaad groupkii ugu dhameeyay bisha afraad waxa cajiib ah waxa weeye iyaga dhexdooda muraajaca isu sameeyay yani marka aan casharka dhameeyo oo ka baxo 2 saacadood sharaxaad aan sameeyo inay iyagii ku sii jiraan qolka oo ardayda muraajaca u sameeyaan iyaga dhexdoodii taasana waqti xaqiiqatan yani wax aad u farxo ahayd ya ikhwani xirfad baro markasta waan rahnaa xirfad baro aad weliga ku shaqeysatid aad xaqal caanaha kala soo baxdid wax ka fiican ma jirto ha kullu minna waqtigiina social media kullu minna waqtigiina laana social media iyada lacag ka qaadanaysa adan lacag laga sameeynaya YouTube aad maanta oo dhan daawado boqolaal movie iyo boqolaal filmaan iyo boqolaal adan lacag laga sameeynaya TikTok adan lacag laga sameeynaya Facebook adan lacag laga sameeynaya طيب waqtiga aad gelin social media ma wax baratid wax baro ka faa'iideyso AJ Crypto soo gal groupka AJ Crypto soo gal ka faa'iideyso maalin kasta macallimiintu waa ka hadlaan crypto waa laga hadlaa macluumaad waa la bixiyaa information waa la bixiyaa kaani ka faa'iideyso marka walaalaha insha Allah waxaan leeyahay isdiiwaangelistu waa diyaar comment videoga lagu soo qornay eega walaalaha koorsada ku jira si aynu eegno fikirkooda iyo waxa ay ka faa'iideysteen iyo waqtiga ay geliyeen course-ka commentdoodana ma sha Allah khayrta aad bay xaqiiqatan u tahay dhiirigelin walaalahood cusub ee bisha shanaad soo geliya in iyaga laftoodu ka faa'iideystaan barnaamijka course-ka faahfaahin uma baahnaan ka bixiyo laano bishii saddexaad baan macluumaad far badan oo information ka siiyay marka insha Allah walaalihii telegramka iga soo xiriirna waa in siiyay xogta iyo qaabka wax loo sharaxay waa idin sharaxay waa idin sheegay walaalaha aan ku jirin groupka AJ Crypto ee YouTube-ka kaliya ku jirana insha Allah videogan ayaad ka arki doontaan waqtiga isdiiwaangelinta insha Allah marka YouTube-ka waad isoo dhigi kartaan commentadiina waxa la barto cilmigu ma dhamaado khayr waa idin sheegay ma jiro qof cilmi dhameeya anigu maanta waaniga koorsada bixinaya walaakin ilaa inta aan adduunka ku noolay cilmi raadi isbaan cilmi raadi inta aad adduunka ku nooshahay cilmigu ma dhamaado intaas ku soo dhameynaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa khayr bishan barakeysan ummadda islaamka ajmaciin meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay hamiga ka qaado iyo dhibta ka qaado oo qulubteena isu keeno ودد استجعل إنه إلهي سبحانه وتعالى نقدقه وكل عام وأنتم بخير وهذا أخوكم أحمد آدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.